daawadayaasha qiimaha iyo qadarinta mudan oo ku soo dhawaada macluumaad ku saabsan dalka Turkiga, dhanka awoodiisa, dhaqaalihiisa iyo saamaynta siyaasadeed ee caalamka ku leeyahay iyo horumarkii uu gaaray sanadihii ugu dambeeyay. Dalka Turkigu waa dal dhaca laba qaaradood. badankiis waxa uu dhacaa galbeedka Aasiya, qaybta soo hartay waa in yaro ka tirsan jasiiradda Lamood Balkanka, taasoo dhacda koonfur bari Yurub. qaybta Yurub waxa ay ka soocan tahay mandiqada weyn ee Anatolia, waxaana u dhaxeeya bad yar oo la yiraahdo Marmara oo loo dalxiis tago. waa dal xuduud la leh ilaa 8 dal oo Yurub iyo Aasiya dhaca, kuwaasoo kala ah Greece, Bulgaria, Georgia, Azerbaijan, Armenia, Iran, Iraq iyo Syria. waa dal istiraatiiji ah oo ku fadhiya masaafo weyn, waana dalka 36 ee ugu weyn dunida. jihooyinkiisa badanka waxaa ka xiga bado. tirada dadka ku nool wadanka Turkiga waa 82 milyan oo qof, waana dalka 19aad ee ugu dadka badan dunida. 80 ilaa 90 boqolkiiba dadkaasi waa dadka Turkida, halka inta soo hadhay ay yihiin qowmiyadaha Kurdida, Carabta, Laakiga iyo kuwa kale. 15 ilaa 20 ayay Kurdidu dalka ka yihiin. Turkigu waa dal taariikh fac weyn oo fog leh, waa dal haysta kayd taariikheed oo ballaaran, waa dal dhaca mandiqad istiraatiiji ah oo ah laba qaaradood oo isku xidha laba qaaradood. waa dal caan ku ah boqortooyadii Cismaaniyadda oo dalal aad u badan iyo dhul ballaaran ka talin jirtay. Turkigu waa dal maanta kamida wadamada siyaasad ahaan, aqoon ahaan, dhaqaale ahaan iyo ciidan ahaanba jaangooya xaaladaha dunida. waa dal dhan walba ka hormaray tan iyo intii uu qaatay nidaamka jamhuuriga oo 100 sano ku dhow. maanta Turkigu waa xubin awood badan oo kamida qaramada midoobay, sidoo kale waa xubin kamida NATO, ururka isbahaysiga ciidamada, sidoo kale waa xubin kamida IMF ee dhaqaalaha, sidoo kale waa xubin kamida bankiga adduunka, sidoo kale wuxuu kamid yahay aasaasiyaashii ururka ganacsiga adduunka iyo ururka G20, sidoo kale waa xubin kamida golaha Yurub. dhaqaalaha Turkiga iyo dadaalada arrimaha dibadda ayaa saamaxaya in loo aqoonsado awoodda mandiqada ka jirta, halka mandiqada uu dhacana ay siisay mudnaanta ah inuu juqraafi ahaan siyaasadiisu ay noqoto mid muhiim ah iyadoo loo marayo taariikhdiisii weyneyd. Turkigu waa dal nidaam ahaan calmaani ah, horey u ahaan jiray jamhuuriyadda baarlamaaniga, kaasoo 2017 qaatay nidaamka madaxweynaha. nidaamkan ayaa dhaqan galay kadib doorashadii 2018. Rajab Tayyip Erdogan oo ah madaxweynaha dalka ahna hogaamiyaha xisbiga talada haya, waxa uu dhaqan geliyay tallaabooyin lagu kordhinayo saameynta Islaamka, laguna wiiqayo saameynta Almaaniyiinta iyo Kalisentiga muddada xukumayay dalkaas iyo xorriyadda saxaafadda. Turkigu waa dal dhaqaale ballaaran leh, waa dalka 17aad ee ugu dhaqaalaha weyn dunida, waa dal kamida ururka G20 ee nidaamka warshadaha ku hormaray, waa dal wax soo saarkiisu Yurub iyo Aasiya aad u gaaray. 800 oo bilyan ayuu dhaqaalaha Turkigu kor u dhaafayaa. waxyaabaha uu aadka u soo saaro waxaa kamida baabuurta, qalabka guryaha, qalabka dhismaha, maraakiibta, hubka, qalabka elektarooniga, nidaamka bangiyada, sifaynta saliidda, wadooyinka, cunada, macdanta, dawooyinka, macdanta birta iyo agab badan oo kala duwan. waa dal kobac dhaqaale sameynaya 30 sano ee ugu dambeeyay, kaasoo aad horumar u gaadhay. dadka Turkidu waa dad haysta nidaam waxbarasho aad u wanaagsan. dadka wax qora waxna akhriya ayaa gaadhaya 94 boqolkiiba in ka badan.
190 jaamacadood ayaa ku yaala gudaha Turkiga. Sidoo kale dakhli sanadeedka soo gala qofka Turkishka ayaa gaaraya sanadkii 25 ilaa 30 kun oo dollar celcelis ahaan. Turkigu waa dal dalxiisayaal badani soo booqdaan, taariikh weyna ay ku duugan tahay. Xarumaha UNESCO u diiwaan gashan ee Turkiga dhaca ayaa dhan 17 xarumood. Sanadkii aynu soo dhaafnay ku dhawaad 40 milyan oo dalxiisayaal u badan Jarmalka iyo Ruushka ayaa soo booqday dalka. Madaarada ku yaala Turkiga ayaa kor u dhaafaya 100 madaar. In ka badan 30 madaar oo kamida waa international. Madaar sanadkii hore xariga laga jaray oo dhaca Istanbul ayaa ah kan ugu weyn dalkaas, kaasoo noqday kan caalamka ugu ballaaran. Waxaana la rajeynayaa inay isticmaalaan mustaqbalka 150 ilaa 200 oo milyan oo rakaab ah. Diyaaradda Turkish Airlines waa diyaarad kamida diyaaradaha ugu wanaagsan dunida. 5 sano oo xiriir ah ayay ahayd diyaaradda ugu wanaagsan Yurub 2011 ilaa 2015. Sidoo kale diyaaradan ayaa ah mid booqata dalalka ugu badan caalamka, laguna qiyaaso 121 dal. Baraha bulshada in ka badan 40 milyan oo qof ayaa isticmaala gudaha Turkiga. Hanaanka caafimaadka waa mid ay dawladdu maamusho oo aad u wanaagsan. Celcelis ahaan nolosha Turkida ayaa gaartay 75 sano. Muslimiinta ayaa wadanka ka 80% wax ka badan. Ciidamada Turkida ayaa ah awood aad u weyn. Turkiga ayaa kamid ah 10 dal ee ugu militariga xoogan caalamka. Sanadkii hore waxa uu ku jiray kaalinta 8aad.